الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سلام كدب ولا ليال waxaan maanta kelmad kooban ka oran lahaa bishan inoo bilanaysa Dhulhijja wala billahi subhanahu wa ta'ala ku daray bilaha u doortay ee quraanka ku sheegay ee shurul xurumka leh wana bishan Dhulhijja iyo Dhulqa'ida iyo Muharram iyo Rajab wala la subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa uu kala doortay bini'aadanka dad uu ka doortay ambiyadu ka doortay xitaa iyaga laftoodii uu sii kala doortay oo ambiyadii Nabi Muhammad baa u fadli badan ilaahay ka sii doortay habeenadu ilaahay kala doortay oo habeenka ugu fadli badan habeen ilaahay abuuray Laylatul Qadriga weeyaan dhulku ilaahay kala doortay oo Makka iyo Xarameynka ugu fadli badan ilaahay subhanahu wa ta'ala abuuray oo salaada ku tukato Masjidul Haram deed bay uga fadli badan tahay sida xadiista Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam ee sheegaysay masaajidada kale salaada lagu tukado maalmo ilaahay subhanahu wa ta'ala abuurayna maalmaha ugu fadli badan waa 10ka cisho ugu horeeya Dhulhijja Nabi Muhammad wakiilaha ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر مجران عمل الصميء إله سبحانه وتعالى لوجه شعيل بدني هي طبعا كعشاء وهرية Dhulhijja عمل كالصميء قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء جهادك أيا لو يديمي كفضل بدن تايبا للعمل كلا سمية نبي محمد ومالمها بحولي ها عمل كلا سمية كفضل بدن جهاد لقلو إلا أنين انتو بحي حوليه سيورتان جهادك كبحيه نفتي سنة أن كسون نقن جهادك سيغي حوليه كنا لنتاي حوليه سيورتان جهادك كبحيه كامو يعني sida kala amalka la sameeyaa ka fadli badan xitaa jihaadka walaalayaal adduunkana fursadaha in laga faa'iideystaa waa muhiim inaadan baynu nahay oo mar walba dambiye naga dhacaya fursadahaas inaynu kaga faa'iideysano oo ilaahay u toobad keeno oo amalada wanaagsan laba laabno ayaa loo baahan yahay 10kan laftooda waxa ku sii jirta maalin uu ilaahay abuuray maalinta ugu fadli badan oo yawm Arafa nabiguna tilmaamin qofka sooma inuu ilaahay sanadkii hore iyo ka soo socda uu dambi dhaafay waana maalmaha dala gudanayo xajka oo kamida arkaantii islaamka iyo shacaa'irta waaweyn ee diinta islaamka lagu yaqaan marka walaalayaal maalmahani waxa weeyaan maalmo aad iyo aad fadli badan tasbiixda kaliya ee samayso iyo dhikriga ilaahay iyo quraanka la akhriyo ayaa laga yaabaa inaad u aydo maalinta qiyaamada marka walaalayaal fursada ayaanaynu dayicin baraarujin iyo xasuusin baana iga tahay walaalaha inaan xasuusiyo kuwaan ku baraarugsanayn haddaan kelmada wax ka qaldayna waa fa min nafsi wa min ash-shaytaan inta ka saxanina waa fa min Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk